madaxa xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolka Awdal Mudane Maxamuud Ismaaciil Aadan ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici warbixin ka siiyay habka ay u shaqeeyaan xarumaha daryeelka iyo hooyada iyo dhallaanka ee gobolka Awdal. Madaxa xanaanooyinka Awdal waxa uu sheegay in ay dardargeliyeen adeegyada caafimaad ee ay bixiyaan xarumahaasi, isla markaasina ay ballaadhiyeen dhismayaasha xarumaha hooyada iyo dhallaanka oo ay dardargeliyeen shaqooyinka ka socda. madaxa xarumaha hooyada iyo dhallaanka gobolka Awdal Maxamuud Ismaaciil oo madaxweyne ku xigeenka arrimahaasi uga warbixiyay ayaa waxa uu yiri magaalada Boorama waxay ka mid tahay MCH-da ugu population-ka badan xagga shaqada xanuunka degmada MCH-kan waa MCH-yadii wax laga qabtay markaynu eegno JBLG-ga MCH-kan waxay ahayd markii hore guri dawladda hoose ay dhisay haddana dawladda hoose ayaa dib u dhistay gurigii MCH markii hore ahayd waxa lagu sameeyay extension bar lagu sameeyay mar waxa haddana lagu sameeyay MCH-ka markii hore roofkan iyo meelahayn jiingada caadiga iyo dhulkana carru ahaa dawladda hoose ay marmarka iyo roofka iyo wuxuu dhan hagaajisay imika sanadkan waxa weeyaan deyntii lagu lahaa MCH-ka baaqi lagu lahaa oo hore baa jirtay deyntii hore ayaa dhawaan ay dawladda hoose kale ay ka saartay meesha oo naga bixisay imika waxaan taagan extension imika sanadkan cusub loo sameeyo oo maayirka cusub imika ay taagantay hawsheedii qorshayaasha kale inoo barsan gareeyeen oo gooban ku tusi doono halkan damba in MCH-ki ballaarin la noogu sameeyo maadaama oo ay yar tahay qoralka MCH-ku haysto ay yar tahay oo qolka halkan aynu hor joogno ayaa wuxuu yahay qolka lagu umulo ee hooyada ku umusho halkan daaradda nadarkaysaana waa halkii patientkii wax kala service adeeg kale loo qabanayay ay soo joogsanayeen rooti mar haddii halkan ku qof rooti soo istaagaan halkan hooyo dhalaysa ay ilmo yar yaalaan isma qabanayso buuqii iyo kaarboonka inta la eeg ilmo yar oo imka dhashay laguma hayn karayo marka dawladda wax ka codsanayn qof fiican oo hooyada ku umusho oo nadiif ah ila noo sameeyo maayirka salaama u maadsan yahay oo nala qaatay waan ku tusaynaa madaxweyne qaybteena ku ballaarinayno dhismaheegiina ay dawladda hoose dhawaan ay gacan saari doonto waan kugu soo dhaweynaynaa madaxweyne MCH Mukhtaar Nuux Ibraahim shabakadda wararka gabilamedia.net gobolka Awdal.